السلام عليكم عاشا aad baad mahadsan tahay waxaan shalaysan soo gaadhnay Montreal waxaan u nimi hawlo la xiriira aviation oo la xiriira qalab loo soo iibinayay airportada Soomaaliya oo qalab UN qaar kamidana Talyaanigu maalgelinaya ayaa ay International Civil Aviation Organization ay muddo dheer ku hawlanaayeen heshiisyo hore oo dhowr sanadood hortii lala saxeexdayna ku jirtay in qalabaynta sameeyaan iyo capacity building ay ku jirtay heshiis xukuumadii naga horeeyay ay la saxeexdeen marka hawshaasaan launching-geeda u yimi maalin iyo labaan joogaya billahi taala waan qoraya marka Montreal yaad ku arkaysaan yaad ku kulmaysaan oo arrimahaas aad ka wada hadlayseen waxa la ballamiyay presidentka councilka sidaad ogtahay 36 dawladood waxa la yiraahdo golaha councilka nin gudoomiye 3 sanado qof baa loo doortaa kaas ugu sareeya iyo xogayaha guud ee secretariat-ka rangareeya labadoodaas aad ugu sareeya madaxda xogayihii guud uu maqan yahay waxaan arkaynaa councilka oo loo ballamiyay bishan kabacdina waxa la launch gareynaya oo qalabkaas iyo waxaas oo hore hawshiisu u socotay in mudada hawshiina horeeyay la bilaabay councilka International Civil Aviation Organization ka 3 sanaba 36 dawladaha badi kuwa aviation-ka waaweyn leh kuwaas 3 category bay leeyihiin oo loo sameeyo ayaa gudoomiye leh kuwaasana maamula wixii ku saabsan civil aviation-ka adduunka sida uu dhigayo axdigii Chicago jangeli muddo dheer aviation-ka Soomaaliya waxa laga maamulayay dalka Kenya gudihiisa Soomaaliya gacan ugu ma jirin marka muddana waxa la hadalhayay in la soo wareejin doono oo maamulka duulimaadka ama civil aviation-ka Soomaaliya in gudaha Soomaaliya loo soo wareejin doono arrintaas xagay maraysaa hadda arrinta ugu weyn ee lagu mashquulsanaaday waxa la dhameystiray meeshii building laba dabaqa oo airport ku dhex taala oo meeshii laga hagi doono dayuuradaha dulmara Soomaaliya laba jeer baa la qaraxyadii meesha ka dhacay wariyada dhawata ayaa labada jeer hadda laftigeeda baaqadihii oo dhan baa ka burburay weli dadkii dhisayay may soo wareejino dhowr jeer bay doonayeen inay nagu wareejiyaan marba labadii qarax kala duwan waxyeelay 3 container oo qalabkii hawadana waa la keenay qalabka kale waxa la keenayaa waqtiga munaasibka oo hadda hawshan loo joogo hadda xamar team iyo Hargeysa iyo u marayaan Boosaaso iyo airportada kale qalabayntii lagu qalabayn lahaa airportada dhan waa laba xarumahu way noqonayaan mid waxay noqonaysaa xamar waa taweyn laga hagi doono talabaad oo wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ku taalay contingency wax la hado oo mid la mid ah xamar in iyadana Hargeysa laga sameeyo iyadana waxay sugaysaa wixii kale iyo qalabaynteedii iyo wixii waa diyaar laakiin waxay sugaysaa wada hadalkaas Soomaaliland iyo Soomaaliya marka ay ugu horeysay aviation talks-ka qaybtii qaabilsanay duulista hawada marka lagu heshiiyo ayaa la soo wareejinaya iyo inta Nairobi loo wareejinayay iyo qalab cusub oo lagu darayo oo hadii wuxuu halkan ka dhacaan mid la wareegi karta ilaa 24 saacadood 7 cashe maalmood toddobaadka iyo 24 saacadood waa dad shaqeynaya dawladaha hawada maraya Soomaaliya waa dadka xagaya marka in laba meelood loo diyaariyo muhiim weeyaan marka ma jira ilaa iyo hadda waqti loo qabtay rasmiyan in qalabka aad sheegtay ay soo dhameystirmaan qalabkii waa la wadaa caasha waxaan hadda waqti ma leh hadii qalabkaasi yimaadaan waxa kale oo aan diyaarinay oo dhamaad ku dhow dadka ka shaqeyn doona airport-ka 24 saacadoodba waa shift bay galayaan marka waxaan u diyaarinay iyagana meeshii ay degi lahaayeen hadda shubkii baa la shubay iyaduna waa laba daarood oo dabadiya konton meelahaas
masquulahoodii leh oo hotel oo kala ayaanu airportka iyadana uga dhex dhisnay marka de hawshii waa technical problems unba hadda yaalee waktiga waxaasoo dhan dhamaadaan daartii la dhigi lahaa